ilahantiinba waxaad ku soo dhawaateen barnaamijkan waan falanqeyn kooban ku sameyn doona xogta ka dambeysa kufsiga saidka oo ku soo siyaadaya gudaha Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho idilahanteedba wax ka dambeeya iyo sida dadweynaha u arkaan ayaan warbixinteena ku qaadadi doonaa isla markaasna aan faahfaahin kooban ka bixin doonaa idilahantiinba ku soo dhawaada isla barnaamijkan run ahaantii sida aan la socono gudaha Soomaaliya bilihii u dambeeyay ama labadii bil ee ugu dambeysay waxa zaid noqday in falalka argagax leh oo dadku ay aad ula yaabeen kuwaasi oo farar aan horey looga arag intaba ama dhacdooyin dhif iyo naadir oo noqday kuwa soo laabtay oo in joogto ka noqday kuwaasi ayaan falanqeyn kooban ku sameyn doonaa haddaba waxaa jira shakiyo badan oo muujinaya dhibaatooyinkaasi inay yihiin qaar ay abaabul ama barnaamijyo kala toos ay ka dambeeyaan sababtoo waa kuwa tusbax xiriga goostay oo kale oo zaid u dhacaya waqti walba kuwaana waxa ay dadweynaha ka muujiyeen in ay tahay mashruuc ama wax abaabulan qaab abaabulan oo dad ay fulinayaan taasna ay shaki aad ka muujiyeen dadweynuhu iyo waxyaalo badan oo jira sababtoo xilligii waxaa la soconaa waqtigii ay barnaamijyadan noqdeen kuwa zaid oo dhacdooyin isdaba joog ay noqdeen xilligaas ka hor waxaa jiray in wasiirad kamid golaha dowladda ay soo bandhigtay arrimooyin ku saabsan ama la xiriira dhacdooyinkaasi in la meel mariyo oo waxyaaba dadweynaha ka soo horjeesteen dhammaan dowladda dhinacyada kala duwan taa ayaa qayb ka ahayd in arrinta keentay in dadweynuhu ay aad iyo aad ula yaabeen oo ay shaki aad u weyn ka muujiyeen maadaama waxa keenay xilliga waqtigaasi ku soo beegay iyo xilliga falalkan ay si toos u dhacayeen ayaa noqonay kuwa labada dhinacba iswaafajinay in laga dambeyn karo oo ay noqon karto falal wax gacan laga geystay oo kale taamase la fuliyay sababtaasna waxa ahayd in lagu arkay magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho falal lid ku arrimahaasi oo si dhacda isdaba joog oo aad arkayso waxyaalo aan horey loo maqlay jirin sida in rag la kufsaday cunug yar gabdho yaryar ay waxyaalo kale oo aan maskaxdu aad aysan u xamili karin arrimahaasi ay ahayeen barnaamijkaasi ayaan si toos ah ku soo tabinaynay dhacdooyinkaasi waxyaalaha keenay janaalkan waxaa lagu magacaabaa Dooxa Media Channel si aad u socotiin barnaamijkan oo idin soo gudbin doona ilaantiinba waxaa leeyahay